waxay qisadan ay ku saabsan tahay ninka lagu magacaabo Xasan Olol Jaamac oo ah ninkan odayga ah ee dhinaca fadhiya. qisadan ayaa waxay tahay qiso dhacday sanadkii 1948 waxaana ay ahayd qiso ku saabsan guur dhaxmaray isaga oo Xasana iyo gabadh Jinniya ama jinka ka tirsan oo la oran jiray Amina Sultan oo jinka ka tirsan waxa uu Xasan qabay muddo waxaana ay u dhashay sida uu noo sheegay caruur fara badan oo ilaa 14 gaaraysa. bal haddaba sheekadaasu sidee u dhacday, sidee isku guursadeen, sidee ay wada joogeen iyo waxyaabihii dhaxmaray muddadaasi iyadoo qisadan waxay run ahaantii qiso cajiiba laga yaabana inaad qaarkiin hore aad u maqasheen ayaa waxaanu bal halkan aan weydiinaynaa Xasan bal marka hore inuu nooga soo warramo taariikhdiisii nololeed halka uu ku dhashay sida uu soo barbaray ka bacdina sheekadani halkii ay ka abuurantay iyo sidii ay u dhacday inuu inoo guda galo maadaama aanu fursad u helnay Xasan inaan maanta ku marti qaadno stuudiyaha telefishinka Hargeysa TV. Xasan bal ku soo dhawow adigoo qisadii mulaxbine iyo gabadhii jinniyada ahayd ee xaaskaaga mar noqotay nooga sheekeynaya. Ahmedow markii hore waxaan ku soo barbaaray magaalada la yiraahdo Caarigaabo dhalinyaranimadaydii waxaan ahaa ninka balooniga iyo kubadda baal afkeena xagga looga yaqaanayo raga footballka ciyaara iyo xeegaa la ciyaari jiray berigeeda xeegadana waan ciyaari jiray markii dambena waan ka dhoofay oo waan ka daatago abtigay oo xiis degan baan u tegey anoo abtigay xiis halkaasaan la joogay muddo markaan muddo la joogay baa inama waxay ka yimaadeen magaalada la yidhaahdo Berbera Ahmedow waxaan yidhi war xagee ka timaadeen Berbera maxaa ka shaqayn jirteen maraakiibta xoolaana dejisa xoolaana qaada oo xagee la maraa ama dooyaha la raacaa baa la yidhi ama xeebtaasaa ku geynaysa haddii aad raacdo abtigay baan u yidhi war raashinka abtiga unbaad ku agaboobaysaa maad meesha ka shaqa tagsid baan idhi waan isxanaantay markii aan abtigay u tegay baa ilaabti waxaan doonayaa inaan Berbera qabto abtigay wuxuu igu yidhi waan dooyaha ku saareen dooyaha yimaadeena su waxaan abti safaraan raacaya oo berigaa baabuuradu ma badnay oo dhib bay ahaayeen baabuurtu markaasuu yidhi ma safaraan raacaysaa haa dukaan buu igeeyey laba go iyo laba shaar iyo garan iyo waxaa markuu iga iibshay buukiisna wuxuu ku tolay bariis iyo timir iyo sonkor markaasuu laba rubood oo rubaabigii hindiyan manigii berigii hore socon jiray ah buu sarif ka dhigay markaasuu safarada markaad raacdo oo ay xoolaha maartay qashaan oo la iibsado ku darso caana markaad aragto ku iibso dee waa ku kaa waayahay baan idho markaasaan habeenkii alaabtaydii isku duubtay waan barkaday abtigay baan kula seexday xariiskii aanu seexan jiray waa xiis salaada arooriyo markaan eedaankii maqlay baan yaan abtigaa ku odhan inaan safarada la sii ballamo ilaynii safarka raacaya maahiye waa keligay baan cagaa wax ka diyay intaan albaabkii aad yar iska furay baan xeebta qaaday xeebta waxaan ordo marna biyo buurta xaggeeda ka yimaado oo bixin la yidhaahdo oo reer buureedkoo dhammi bixin bay yidhahdaan biyaha soo gala badda waan ku leexdaa oo waan ka cabbaa marna orodkaan isdhigaa markaa ninka laba Caarigaabo dhalinyarada labada lugood oo ka ordo ugu dheereeyaan ahaan jiray markaasaan halkaa waxaan kula kulmay goor maqrib ku dhawaada gabadh badda dabaalanaysa gabadhii baan waxaan is idhi haddaba badda la ciyaar ina yaroo 15 jir oo markaa kacay baan ahay war gabadha meel cabaa iskala dabaala jiro la ciyaartid dharkeedii oo dibadda yaalna ana dharkaygii agdhigtay alaabtaydii oo dhan baan dhigay nin magaaladaasaan dabaasha ku bartay oo timadheer oo cad baan lahaado baa intaan quusay baan halkaa labadeeda lugood dhexdeeda intaan ka soo baxay baan tibii biyaha ku siiyey shax waa maagayaa markaasay jiwaryaha baddaa ku dabaalootay iga dur maxaa loosta iga soo gelaysaa markaasaan intaan wada dabaalano markaasay suwar kula dabaalan maayo badda geestaada ka dabaalo waan quusay shaam baan qaaday oo biyi baan intaa wax kaga siiyey waan kululeynayaa meesha dagaal inta dhex maraan leeyahay
iyadoo aan dhaqdhaqaaqin oo kicin baa markaan biyo ka soo dhex baxay bay igu celisay markaan cantuugay bay iga sii daysay markaasaan isku soo qaaday markaasay ma dhaqdhaqaaqina halkeedii misna iga quusisay markaan misna mar cantuugay bay iga sii daysay markaasaan tashaday markaasaan wariyaha tan badda kaga adkaan maysidee banaanka ku sug banaankii baan u soo baxay guntigaan diisha iskaga dhigay markaasaan guntiga gaabsaday oo labada loogu dhaafiyey oo bud weyn oo aan sitadoo madheedha baan sii qabsaday oo kii kale dhexda bo-ay kale ku martay anigoo diyaaroo xaabtii fadhiyaa ba iyadoo aynan ahay duqsi nina ay aan kala jeclayn ba iyadoo sima dheer bay lahayd oo badda marna sidaa simiila marna sidaa oo xadreynaysa bay igu soo baxday markay ii soo jirtay badda ka soo dhammaatay baan kala hortegay budkii oo dharkayay kaa qaadanay intaan dharka qaadan naagtays maxaad bari ka ciilbeen budkii aan sidaa u taagay oo maxaad badda igu baktiinaysay markaasay iminkaan kaaga reynaya budkii aan sidaa u taagay gooray i qaatay iyo gooray i ligatay iyo midna garan maaye waxaan arkay anigoo jiifo labadayda gacmoodna ay ku qabatay gacanna xunaa iga saartay markaasay tiri wariyaa ma iska tegaysaa mise kacad iyo kan madow baan ku kala siibaa markaasaan anigu isla hadlay caloosha ka hadlay waxaan idhi wareega dadku hadduu islaayo waa tuu isku xiiqi jiray goormay ku legatin qofta dumari xasano markaad halkaa marayso balan kaa yara dhex gale ma af soomaalibay kugula hadlaysay sideetee gabadha u ahaa midabkeeda iyo jooggeeda iyo balqaabka dhismeeda nooga warransay waa keed qaabkeeda iyo quruxdeeda iyo mid walba soomaali aan inta aan maray haddeer aan anigu soomaaliya dhex marayay horta quruxda iyo lafta iyo sida ilaahay u khalqay anigu weli gabadh sallowda mid dhib baan arkaa laakiin naag la qurux ahayd ama la tim ahayd ama la kub ahayd ama la bari ahayd ama la dhex ahayd midna ma jirin gabayga aan ku marka dambe u turin doonaa baad nagu garan doontaa quruxdeeda af soomaaligana sida aynu u hadlaynaa bay ugu hadlaan af gooliyana iyagu waa leeyihiin oo aanan badan oo la yidhaahdo sida aan isagana kuu sheegi doono markay ku wada hadleen dadkii jigka ahaa haddaba halkaa markaan marayo maahayna waa tegayaa iska sii kayda way sii daysay waan dhaqaaqay markaan ka socday alla ilaah adigu midhaa 200 tallaabo baan soo eegay mise kaani bilabiskii bay dhammaysato waa labisatay jeesadkaan sidaa u jeesay sidaa adii dhinac fadhido axmedow bay dhinac taagan tahay markaasaan iska socday anigu nin dudayaa markaasay ganabkaa igu dhigtay axmedow oo tiri inaan reer xagee ku socotaa nin cadhaysan baan gacanteedii baan iska tuuray axmedow markaan iska tuuray bay horqabataysay way isu kay gudubtay waxaa war ma nacas baa tahay dadku waana isdilaa waana heshiiyaale xagee ku socotaa waydiba maslaxaad gashay waa qof aabaheedaana midhaataanka ku yidhi jin iyo insi u hadeesho baan kuu guurinayaa soo kaxayso marka anay heshado mehesha iska kay geli mayso haddaanay rabin markii horey badda bay ugu baktiin lahayd maigama arkeen cajiib markaasaan axmedow aan berberac noo dudaya xadhadee waqaraysaani laga adkaaday baan afkooda berberac ku socdaa markaasay tiri oo berbera intee ku gaadhaysaa markaasaan intee galabta haddaan gaari waayo berri miyaanan gaadhay markaasay tiri carruuray cayntaa baaday berri saa dambe saa 10 casho kuma tegi kartid haye masaasay u fogtahay saasay u fogtahay markaasaa ay tiri warheede maantoo dhanna waad soconaysay waa inaan yasha waa tahay waad gaajoonaysaa guriga iyagiyo halkale usii hodo marka aad cashada iyo shaahaaga iyo waxalba ku bislaysato meeshii aad u socotay qabo markaasaan yidhi oo reerku waa xagee oo aana sashadoo yidhi oo maad cashadaada iyo shaahaaga intaad ku bislaysato markaad dareegto dayaxa raacdid si aad ugu dhawaatid berbera markaa qiyaastii may kaa da'weyneed xasanow xagga daada matalan maya waxa aynkaasoo la sheegi karo igama da'weyneed laakiin way iga da'weyneed xagga dhalashada laakiin cumrigeeda waxba kamaad gelinayn laakiin cumri weyn oo aynkaasoo la tilmaamo kama muuqanin markaas ya waxay ahayd markaanu kulanay waa 48 maalintaanu halkaa iska helay anigu dee markaa taariikhda ina yar baan ahado
waxaanu garanayaa 48 haylo 48 waa tii dagaalkii laga soo noqday labaad 48 markaa 48 dabadeed baan saddexdaas sano baan garanayaa inay markaa 48 ay ahayd waqtigaasaan u go'nay markaasay tiri waryaarkayagii halka lagu sii hooyo fartayii gudbi markaasaan idhi oo reerkiinu waa xaggee markaasay tiri fartayii sugudo tiri waa halka dhow markaasaan waa yahay damar حقي بوجي بي أحمد ويجيسي كعنتانا ويجا بوستي حقي بوجي ما جيسي إلى بوتلا إلى بوتلا ما كنا يوحنا كبوتلا كذا أنا قلت حاجة مركز سايتي مركز أنا منشنا ومولا كنت كذي أوصل عمنا صيب يقصوا عاج الله يسيبه ولا تاي يسيبه ولا تاي يسيبه مركز نقصوا عاج بي إلى بوتلا حاجة سبيتي ما يصير أفهم كشينا ويك هي بقى عبار واحد يقول له ما قاسي أنا جاي ما قاسي شيء أجول ما يقول من السلطان ما يقدر نيسا ما قاسي هذا ها ما قاسي ترى بهي ما قاسي له قال شنو يسوي واحد يسوق حيسو وأقول قولي يعني إذا كاير نانسو ولا ما أدري كستان أنا قلت شنو يسوي waxaan ma kala aqaane ilaa kuwana maqasheekana kuma maqale waxaan moodayaa isla sheerka yaga la yiraahdaa sheerka wadankan degana jin la yiraahdaa oo anigu reeraha habartooda meesha degan baan magac labada magac baan u kala qaatay rubaante iyo habartooda oo kale baan u qaatay oo reeraha habartooda meesha degan baan mooday markaasaan ilaa caawad kula gashay والله يقول صوياعي مركاسي تري مركاسي صاروا ويا أمان جلسوا مركاسي على جواي أنا سودح قليني له طول كفري سيو أنت أنا باسو ويدين إنه يا كباي مركز كاسو سيدا ويكاين تكان لفتو ما كامل واسيدا عين نوم العلو وتدعين كيلو وتدعين وحبا حجابي وحما زي بجر ساعي وحلي وسمي مجري رجل الدمر يعرفون يعدل بويلي ما يوا رجل تكلي مركز الدمر ما عاد كان يعرفون رجل بيعاين تكلي وصار من نقصيك ويقصوا يعني مركز مسلم بقى أنت مسلم بيعاين ما سن ما كان وجدي مركز سويلي مركز ساري سيبول كان سيبريسو ما تبي هو عندك إذا شاء الله قد تستمع يا بوششكا أقل يرول لك بالي جري مركز سان تكتو وجدك ويجي وابري لا بدل بقى يسكوا كأورا مركز سان markay kaalibtaan kabood buurta oo carar wala caawad qoday waan dhegaysto markaasi aleeya waa kaa fogaadeen baan siri boodadii aan sidaa idhi baa aqalkii igu soo orday iyo aqalkaa bay isteeshiya aqalka naftiisii bay igu soo orday markaasaan futada luka ku dhuftay horta axmedu markaasaa nafi igu dambaysay anigoo wadnuu bugtaayahayo markaynu baqaynalo waa ka wadnaheelu wax ka taqan wey anigoo wadnuu damtaayahayo bay ii yimaadeen gabadhii iyo nimankii oo wada socdaa soo bax baa layidhi daakii baa yidhi u yaadha waa laysoo kaxayey meel weyn oo fagaaro ah oo ay samaysteen suldaanka iyo qubaasha iyo mashaayiikhda iyo ragga madaxda fadhiyaan waa cabsigii boqortooyada baa meel laga soo geliyo albaabka laga soo taagay ridii مركزان السلام عليكم السلام هيا مركزان صوصو سلطان كي وكم قرضا فديا سلام كبيبان سكبت يوم جحمر يا سلطان كي بان تقوان سلام يو حلاك وكو فديا فراس حلاك با يو برشلوي بو حقيقي قلابتي مركو حقيقي قلابتي بواجي أكسي سي فريسي مركزان وحلي شو بكوب شاها او بقايسا مركان حبي بو الكوب عطيت انا وشو مركزان عشان بيها هذا الولاش مركز عالي بيجو السكون ترى وبالحرمة يعتاب فيها خلية إنسان ما تنبه ورتيه بيه العالي بعد شو كذا مركان من كثير بعد يسبحي كسوري وأي جماعة توا كريتو يسكون مصحي مركان أحمد يسكون مصحي هكا ما وأعقبوا بي ما كوب عتيسو شهر الله يشوي مركز يشوي بيان كوب عتيسها حبيبه بيه واريا حسن ولول نيف بيقى صوت عليه مركز سويري آمنا ما ولا سوتين أنا ما قبل يجي سوت آمنا لا هذا مركز سويري هاي ما ولا سوتين ها ومعي بتري
waxay ugu tiri sultaan reertii egayo halka u sooyo markaad cashadaada bislaysato shahaaga bislaysato meeshii aad ku socotay qabo iyadoo halkii aad taysnayd dabadeedii taagan buu yidhi aamina ma sidaasa markaasay tiri aabba waxaan waan ku raacayno sidaasaan ku soo kaxay gabadhii waa ku rabtaaye ma rabtaa buu igu yidhi markaasaan fikiro idho maseerkaasa guulkoodii ka baxsan kari weysay baad gabadhoodii maya odhanaysaa markaasaan waan rabaa inaan reerka yagii xoola kaaga doono markaasuu yidhi annagaa xoola bixinne xoola ma qaadine gabadhii ma rabtaa markaasaan idhi haa nin gad weyno halkaa soo fadhiyo shiika buu yidhi shiikh cumarow gabadha shiikh cumarow inanku waa ina yare dee muul amar u noqo aniguna gabadha baan dee aabbeed oo muul amar u ahayo dee markaasuu yidhi xasanow may wakiilatay markaasaan ku yidhi haa shiikh waa ku wakiishay halkii baa dee gacanta la saaro wuxuu meherka dhici jiray baa dhacay sideedii oo kalaa meherkii iyo heshiintii iyo wax waliba markay dhammaadeen baa gacmaha laysa saaray oo intii yarayd oo midnaa meherku dhacaya aqal 3 maqsina oo ilaxid baynu idhaahnaa innagoo af soomaaliga waa aqal 3 ilaxid ah baa la dhameeyey markaas haddana aanan weligayba arag la ii keenay macawisa sabarantaha koora isboortkood loola jiro macawisaa loo qaadan jiray oo muwalaynu kasannahay oo kale halkaa shaabad ku lahaa iyo culaamada shuwaana goshaala war adigu kaba buura waxaanan weligayba arag markaasaan ba idha hayaay walahi reerkii abay socdaaba berbere ka wanaagsan halkii aan isdaawaday markaa la bistay markaasaa 2 wiil buu igu daro markaasuu yidhi gurigiisii keenya waa 2 wiil bay kaxay oo alaabtaydii baa la ii qaaday aan sitay gurigii baa isidiisii lay taago ila xilkii hore alaabtii ay ii dhigeen markaasaan gurigaagii waa kala dee fadhiiso anigoo aan fadhiisan bay iska baxeen iyagu anigoo daawanayo le maxaa meesha ka baxaya lay tiri sihii ka bixi maayo oo munaarado baaro shidan jiro qoordhaadheera ka bixi mayso oo faynus ka bixi maayo waar meesha maxaa ka baxaya aan daawanayo baa xagga durbaan ka soo yeelay bam 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 وإجابه نور الله محمد نبي مقصامه بم 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 وآمنوا السوق البيئة هالشي أنا أقول سكتها قبل ما قبلوا يلي ذرق ليسوا شيء والمحمد سكتها قبل مركزين جالهم سوقي مركزين كوركي قبل الشيء وشاركي قبل الشيء وعملت هالك وإن شاء الله أرادت يوم مركزين قبل الشيء معوستي يقرأكي وشيء شيء بيتي صوب فريسو إذا حلك ورانا فريسانو بركيموني الضابع ميرانا يفراسي على كل كل شيء صاروا كل اللي قشت هي لكن هو يعرف ويا با هالكي أنا وقارن صوب فريسي مركزان كوري وهذيك تيم حسين سوتي أنا الحس دونت مركزي أنا قلت ما أنت عاوانا قال روس النوتاي من حسنا كواه سكفريسو waayahay baa idho iska fadhiisato cabaar markaanu sheekaysanay baa halka laga soo saqaray dam 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 oo mise waa xoolo qoray bariisaa la soo geliyey waa xoolihii qorayga ahaa waxa la soo geliyey isna bacd xoolo sibidii loola jiray oo sanoodii lagu soo shubay oo dad baa sida mise dad baa sida aniguse dadkaa markaa dah baa loo rogalo gabdho muxliisiintaa unbaa ka soo qabanaya 2 qarrabo caana oo midna galoor yahay midna day yahay hilib falfala wixii baa la keenay wixii markii la soo dhigay oo hareeraha aanu ka galay oo faraxalanay oo halkii oo markaasay tii haya bismillah hareeraha aanu ka galay anigu nin maanta oo dhan ordayaan ahay baqadinaanka shalo bariiskii sanuurada ahaa maa 2-3 goor canjuuge hanuub galoorana waan dhamay markaasaan faraxashay oo dugaalkii ismariyay oo barkimooyinkii baan dib ugu tiirsaday war maad nala cashaysid markaasaan waan idiinku heesayaa wada garaaca markaasay halkii cashadoodii iyagu siyaar isaga cuneen markay casheeyeen oo ka dhargeen bay waxay reebtay hilibkiiba waxay reebtay jeedi iyo awla oo masafi aynu siyaarooyinka ku gey jiray oo kale ku jiraan bay ku dhigtay markaasay iyo haruubkii galoodka ahaa qaruubkii bay waxay geysay halkaanu seexanayay gabadhii geysay
قبليه حسين تملا باقي شيء والله صادق عبار ما كان نوشة كي يبين هذا عروس لقمنا شاق ولا قمنا شاقتين بس قلت واي قبح أنا آمنة سو صاحبنا آمنة إلى هلكا إلى ميرو بدها باقي كتير كيف جيت بقى حديث تم ذلك حديث مغنى الذهب كما وضع الراعية هو ذا فصوصي أنا ملك على قانون الصومالية عدمنا كل شيء من بدء فصوص له لكن قدر الصومالية ذاك بالليل والستان كما عليك فصوص تان وحيو وضع الراعية ولا بين هالكلام نشتي بيه قاتل وجاي يجلسوا صوب كعبين تروان كعلو كواهي كمان كسلوا هكي تمام تغنوا كليبا اسكبت حيو إذا أنا مركزوا توحيو الذهب هاي اسكبت نشتي اسكبت مركزوا جو شيء قاتل أنا كان جو بيسيس لما لا جو ما مركزوا ولا فريسة مركزوا حصل أي هامنا أي شيء أبهاي وإلى عوانا كاسكا كو أنا باي وإلى عليك حاجة نيجي ناكي باي نقولنا لو أنت ماشي بسم الله سحصلوا واي واحد حصلوا شيء كبتير بعد ما أنت تعي مركز قالوا شيء لما تجيش وحن قصينا هنا كوفيت هذا لو أدوك على كتار عادي قاعد يقارك وحن قصينا هنا في الجلس من الله ماشي مية خبرته مركز سلا هذا أدوك تاجر يسركيش وحن برينا علمك أدوك أو قال يا إسلام نروح الله نمر برينا وحن برينا لسه الصومالية قطع الله واحد كشيء واحد بده دوام واي أنا يعني هي قيوم ما يوحل إليه إذا عندك عقل يوحل لها بل كاتو كي يكوفيت هاي تبين علمك يبرع وعقل لماذا علمك لكم برتاعي وفايدة كلها جلها يعني وحل هي قيوم إذا هي دوام بولي ويجي دوامتين عشان يبان أكيد يشتروا بلو أبيك إذا سكولي سنلو ماشي يلي جو اسكسار واجي مركوب بلي وصدوات كيتاي باي كلسه القاسي تي كاو سوق بيسو كدو وين تبي وسو سوق بيسو وسول بيسترو مرقاسي قرا علي يغو شيء يغو دايت قادي بيجي كل جو تيسا باي ديكت marka ay digtay halkay aan ku mulayo waan qura caday baan baan xalaytay dagaal cusub iyo dagaal kale waa soo hay كودي هذا ما مركز تاعي كودي بسطه ده يوم الساعة اللي يجي أو كذا يقولي هوب 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 يا كذي بس لا يقول عليه ملح يلا صحون سمس عقلي ومس عقلي راشن كوسدا ما راسك جوايا لا راسك يجي على كان أكتر يا كان هريا لك ما يجي على يلا وايد نعيش على وعمله أنا مس عقلي بان دول لو تقع يلا هلك يلا قاتل مسكتك كذا ويجي عرفت مغرب كي مركي آية هاي باقي الله نكين سجاها سودوني سودلا الله نكين سجاها سودوني سودلا سلطان كي جوا صوب هاي سلطانتي سلطان كي بعد هاي وايو يسوق حدك مركز يسوق عاد مركز سوري لا ميال أي كيو ميان سوق ويادي حاجة وحاجة تكحير كلها فينين انت وين مشكلة يعني مركز في حاجة وحاجة يعني أقول قلت ميجي ورميان تجي ماوية سلطان كي بعد هو قبل بدي واجي لقى يقول هنا سيدنا إذا قبلت إذا هو سريبا كحرام ستي كسر ماشي ثلاثة وحيو بلا إدب كان وأنا بارم كغيار وأنا جاي على الناس سلطان كي بعيد يعني هذين كسروا قاعدين نرجلي يعيسي وين كغير أبو مركز سوي حصلوا maalintii bahal adduunyada ku nool afar maaha inta kale waa noqonnaa maali afartee baynanaan noqon ay ma noqono doofaarka ma noqono abeersana ma noqono haraqna ma noqono maska haraqa la yidhaahdo afartaa midna ma noqono laakiin bahalaha kaloo dhan mid walba waanu noqonnaa
حتى بسلطان وقلت ما كان يسجلنا يا وحنا ما أنت أنا وير أنا قلت لأن عبد الله فقالت لي حتى بسلطان واحد يليس أنا جايو تتكاغن نكال حكم اللي هو أن تقال أدان ويسنا أدان بحر على النوم فلا ما كفنو هو أنه أكتر مرقى في روانتي مرقى في سويا يقول صنعها وما أنت تمثلين أيها كات كات أيها زيغلو وحل مرة أوجلا وكك مكمل شو هذي ما أنت سيجي بحطان كلاكوشي وسيجي ما ويديو يا واي يا بحطان إسلام شاركته فسكا يخفو خطر منه بحب لغلو شيء ويدي مرة سلطان أقول محاط مغطى أنا أقول أعرف هذا ما قاعد يقول لي بحبان نغلاوي مرقى ساعة عروسة كايدي ولا أتعطيك كلام ما قلبي